عيد وما يا ما جرتو عيد سؤال ويدينا يا أنا ما جرتو سوى حد عن عيد وليه ما جرتو وعجبني ماشى ميت كوحة وعجبني أووها وعجبني رجلة هاي وعجبني أغانتها هاي وعجبني وسق بريء سكينة
qaadayaan. soo xijaabatay qofkii dilkii dambiga geystay uma muuqato waxa meesha ka dhacay waxay samaysay toon xijaab ay soo xiratay gaariga raacaysaaba
gudbinaynaa WhatsApp-ka eedaysanaha labaad mobilkiisiina waa kana waxaa ugu qoran Hodan Maxamuud Diiriye fariintii ugu dambeysay oo ay isku direen waa 12 bisha 12 waa markii ay marxuumadu sakaraadka ahayd ee naf gureysay ee la jir dilayay codada kanina waa codadkii aan sheegnay ee ay u diday gabadha kale ay ninkan u soo dirtay mar labaad intii qofkii ka soo qaaday ee u diday mar kale ninka ku soo celisay kor u soco waxaa jira labadii muuqaal oo markii WhatsApp-ka lagu furay kombiyuutarka uu yara cuslaaday oo muuqaaladii mar labaad ma soo degayaan laakiin ayagoo degsan bay maxkamaddu arki kartaa oo jaadkooda ku dhex jira balse codadku waa ay degsameen waana la daarayaa laakiin labada muuqaal oo midna baraha bulshada yaallo oo bishii 26 mid iyo kan kalaba waxay u dirtay WhatsApp-kiisa wuxuu hayay xogta wuxuu la socday jirdinka tacadiga dhibaatada meesha ka socota kayna waa mobilkiisii maxkamadduna ayada indheeda ku furayso ku arkaysa سمعة دولية marxuumadda ay cusbitaalka ka soo baxday waxaan halkan ku cadeynaynaa inay marxuumadda magaceedu kor ku xusan yahay la keenay cusbitaalka qaybtiisa gargaarka degdega iyadoo meyd taariikhdu markay ahayd 12 bishii 11 2025 saacadu markay ahayd 10 oo buura marxuumadda waxaa kaga yaalay dhuunta dhaawac u muuqday xarig lagu ceejiyay wajigana waa uu bararsanaa sidoo kale labada gacmood waxaa ku yaalay dhaawacyo u muuqday xarig lagu xiray waxaa kaloo marxuumadda ku yaalay dhaawacyo fara badan oo ah kuwa dhiigaya iyo kuwa markaa biskooday kagana yaalay madaxa labada gacmood dhabarka iyo labada lugood dhammaan warqadaas ku qoran ay dhakhaatiirtu qoreen waxay ka turjumaysaa cadaymihii aanu maxkamadda la wadaagnay hadday ahaan lahayd markii ay xirnayd hadday ahaan lahayd markii ay waxa weeye qaraacistu ku socotay hadday ahaan lahayd markii jirkeedu dhaawacyadu ku yaaleen markay naf baxaysay intaba sidaa darteed xafiiska xeeraalinta gobolka Mudug waxaa u caddaatay in dambi dhacay labada eedeysanana ay yihiin eedeysanayaashii galay dambi aanu ku soo eedeynay si waafaqsan 110 maxkamaddu way mahadsantahay
وقد صار وحتى ما أيدين دمن مياه جحرة كروة كروة وهي بسم الله الرحمن الرحيم هنوجد بينها إلى مو دفاع سنها وحنو يرينا مرة كوبات سنة هذا محمود يري ساق waxaan u gudbaynaa marka dhageysiga waxa weeye difaaca eedaysanaha wadan waxaad u joogtaa maxkamadda darajada koowaad ee degmada gaalkacyo eeda lagugu soo eedeeyey oo xafiiska xeeraarinta kugu soo eedeeyey waa dhageysanaysay cadaymaha ay soo bandhigeen awalan waxaan rabnaa ma waxaad isdifaacaysaa adigoo dhaaranaya mise dhaar la-aan baa isdifaacaysaa أظن نارن يا يعني ما واحد دارنا يساعدك واستفاع يعني دار الآن وحقوق بنان إن دارتك مركز استفاع عيشك يوم إن هذا دار الأول وحقوق بنان تاعي مركز ما دار الآن باستفاع عيسام سوى دارنا يسام أوكي قرن هيا متى سواء صنطور كسجت الإشارات وقرجسة وقرجين الحكومة. عندي واحد بوشلو حوض الرسول جديد حوض الجديد. سنا درابة الواجب أنا عيني بتقول. وياي وحنصيرنا دفاع هذه سنها قرننا هذه سنها سواء صنطور بقول لحية طبعا وسوق بدفاع سورو. دومي أو بالله
ركور فريسو بسم الله الرحمن الرحيم مدن القدومية أنا وقران عبد العزيز محا فارح قرينا وقاه لهذا السنة أوضن محمود ديرية وعن محكمة ذاك الوسو بالبناية وابعدت إيادة الوسو الجديسي حفيز كقرامة القول كمون وكلا ضيب مدن القدومية سيدة الصحة ودبطة وسيدة وكلا ضيب الشاكتي وكلا ضيب معها دبيلة منقل المسؤولية إيادة الوسو الجديسي واحد دورة ركوالد مدن القدومية إيادة حفيز كحلالته موافق صنع وضبك تدواتري كواد فقردي سلبات عرف كدا تاسو تلمانيسا إلا هلو وقتي أو دمي ودعي حفيز كحلالته نمشي وقت عد أو دمي ودعي وحي محكمات الكور عديسة دمشق ليا دمشق وجعي كهري مراجعي لصومري لا أيس الشيء حفيز كحلالته sidoo kale mudana gudoomiye eedda xafiiska xanaanka ma faahfaahsana sida uu qabo qodobka 7aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo xafiiska xanaanka waajib ka dhigaya inuu eedda oo faahfaahsan keeno iyo qaabka uu dhacday mudana gudoomiye wakiiladaydu waxa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah qodobka 400 wakaalada مدن القدومية موكلته waxaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah 434 oo tilmaamaya dil bareer ah ama kasar مدن القدومية qodobka markii maxkamadda la rabo in loo cadeeyo waxa koow ah in la helo markii qodobka la cadeynayo 434 waxay tahay إلا هلو كو عسريات كو كوكو هي قلب كاسو أو كلا إن أي قشي ستي إلا هلو قشين سلوا مرجيو إنه دعي في الدبيل إن الموكل ضيد قشي ستو حفيز كحلان تبكين سلوا كلا إن وقتك في الدبيل كو دعي وقت كهرية وقتك فرق دعي وقت كهرية inay qorshaysatay wakiilantaydu ma sheegin sida uu qabo qodobka 23aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay waajib tahay markii la soo eedeynayo dil bareer ah in la helo ama lagu dhiso eedda tiradkaas sidoo kale in la helo in uu jiro ku talagal fal inay wakiiladaydu hodan inay ku talagashay inay disho marxuumad Saabiri taasna lama hayo sidoo kale lama hayo qorsheyn inay muwakiiladaydu qorshaysatay falkaas taasna maxkamadda xafiiska xalaalintu eedda u qabacdo mudane gudoomiye waxay ahayd eedda xafiiska xalaalintu waxay sheegtay in marxuumadu u dhibatay dhaawac ay u geysatay muwakiiladaydu mudane gudoomiye waxay ahayd qodobka 440 oo la akhriyay qodobka 17aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inay xafiiska xalaalintu ay cusubtay taana ma cuskan dhimashada waxa sababay dhaawac baytay eedeedana kuba cadda dhaawac sababay dhimasho eedda xafiiska xalaantu waa mid iskoor imaanaysa mudane gudoomiye sidoo kale tiirarkii la rabay qodobkaas ku dhisnaado waxay ahayd qalabkii faldambiyeedka lagu galay inay maxkamadda la keeno faldambiyeedka qalabka lagu galay maxkamadda iyadana lama keenin sidoo kale inay cid ay la wadaagtay ay maxkamadda keentay ahayd maadaama uu yahay قدر شيء ديل بريئة إن عدة أي لو ذاك هذا إذا ديل يسمر من الصابرين يلا نحكي اللي بفكرين السيدة دراد قدر كأفر بقول صدر يا أفر وعليس كويه هي وكلام ده إذا هذا محمود ديري بدل بدو بهذا وضع على سوى قدران كو هذا حفيز كحلانته يسوق بس قبل كمودو وحرير على وله مخراتيو أما مرق سيدا وتلمام يا شرع الإسلام كما داموا ويهدي البريرة أفر مخراتي وأركاي محكمة الأمريكية سيدا حفيز كحلال مكة من عديم الله يقرأي ووكيل الديد وأي كل هذا هي مرحوم الصابرين أنا أدري المحكمة الأمريكية
sidoo ku cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xilaalintu waxay u turjumatay qodobkaas si khaldan sidii ay muwakkiladu sheegtay waxay qaraalka ku ahayd maxkamadda ka horjeedo sidoo kale mudane gudoomiye lama keenin cod recording oo laga hayo marxuum saabiriin ee leedahay dhibta waxa ay geystay Hodan Maxamuud Diri taasna maxkamadda loo horkeeyo sidoo kale iyadoo nool in isbitaal ugu tagtay ama goob caafimaad ugu tagtay ee u sheegtay in dhibka ay u geysatay marxuum saabiriin muwakkiladu maxkamadda loo horkeeyo sidoo kale lama keenin report dhakhtar oo maxkamadda mar iman dhakhtarku warbixin dhakhtareed maxkamadda laga horkeeyo uu leeyahay falkaas saas u dhacay maxkamadda laga qoray iyadana laga horkeeyo sidaa daraadeed mudane gudoomiye waxaa halkan kusoo gudbinaynaa maxkamadda sharafta lagu soo gudbinayaa isfartaag waafaqsan qodobka 105 faqradiisa 2 xarafka e taasoo ay tilmaamayso inay isfartaag ku sameeyo eedda xafiiska xilaalintu maadaama cidda ay dhibanaha ku sheegtay ay sheegtay xafiiska xilaalintu ay ku tilmaantay inay tahay ehelka marxuum saabiriin muwakkiladaydu ehelka marxuum saabiriin ma taqaan aqoon uma leh wax xiriir ka dhaxeeya muddo sababay ehel dhibana ugu noqdaan muwakkiladayda laba hayo taasna maxkamaddu waa asbaabta laga daliishanayno oo eedda aan ku durayno maadaama aynay jirin dhibana sax ah oo la keenay xafiiska xilaalintu soo gudbiyey sidoo kale maadaama eedda xafiiska xilaalintu ahayd inay waafaqsanaato qodobka 71 ay ahayd labada eedeysana ay soo eedeysay hal eedeysana ay muwakkilkayga ku wixii dil bareera muwakkilkayga dil ma bareera mudane gudoomiye sida ku cad gaarka boolisku soo qoray si waafaqsan qodobka 26 27 gaarka booliska waxa ku cad in labadooduba ay dil ku soo eedeeyeen taasna xafiiska xilaalintu waxay wax ku badal ku sameysay eedda taasna waa sababta aan isku hortaagayno marxumadda sidoo kale mudane gudoomiye waxa lagu tuntay xuquuqdii muwakkiladaydu maadaama sharciga loo sameeyahay waxa la jabiyey qodobada dastuuriga ayay jabisay qodobadaas oo kale ah qodobka 27 oo tilmaamaya in eedeysanuhu inuu xuquuq helo nabadgelyadiisa la ilaaliyo sharaftiisa la ilaaliyo mudane gudoomiye xafiiska xilaalintu wuxuu sameeyey wuxuu faafiyey iyadoo aan eedii maxkamadda u soo gudbin fiidiyowgadii uu ka qabtay muwakkiladayda ayuu wuxuu ku sameeyey faafin taasoo ka hor imanaysa qodobka 27 ee dastuurka dowladda Puntland oo tilmaamaya qofka eedeysanaha ah in la ilaaliyo sharafteedii ayay ka hor dhacday sidoo kale mudane gudoomiye garsoorayaal amaama maxkamada markii la taagan yahay maxkamadda horteeda marka aan saa u taaganahay xeelaliyaha gobolka Mudug oo muxuu iyo